السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي السود وهذا ميل باجوكتين يستيكستوني سو قاريو مخالكم قرح بدن أصحابي ما تحيني وذا برامج ميل بدن لقى سميي إن بدن هذاتكو إدهم برامج كاسماء سكوتاي سماء لكي أنك عيد شيء شيء برامج كواحد لماهن وتجابي شعير كاجي إنه جاعتكو يهي ساود أكتب برامج كهاري وحلوق ساقبتهاي oo ku caan baxay Ridwaan Isaaq oo Nairobi ka qabta sidoo kale hadana gobolada dalka oo dhan baa laga qabta Soomaaliya ana waxa jeclaystay in Galdood ka qabto isla markaana aan arko dhalinyarada iyo ma aragtay jacayladooda inay daacad isku yihiin waxa xanaaqinina hadii jacaylkaagu uu mid kale ya ka yar raaco gabar adna xanaaqadu jacaylkaagu mid kale dhaho na kala jeclahay intaas waa kaftan waa mataqaana qof walba daacadiisa iyo waxa loo ogaanayaa sidoo uu qofka ku yahay barnaamijkan waa part 1 waa markii ugu horeysay dad ku fashilmanana sideedana hadii kalena tigoowadeena ilaa iyo part 100 soo dhawow walaal ku soo dhawow Maryaladana official ku soo dhawow barnaamijka tijaabi jacaylkaaga barnaamij waxaan qabanaa markii ugu horeysay Galdood ka qabanayno horta barnaamijkan waa daawata Soomaa barnaamijkan aad iyo aad هاي وان دابا برنامجكم ku xiran asxaabta leel baastay ragaas ba ku xiranta ka waran marka barnaamijka inta daawanisay maxaa kaaga baxay wallahi wax badan baa iga baxay horta barnaamij fani weey barnaamij waxaan ku dhahaa aad iyo aad u xamaasad badan weey waa tahay barnaamijkaas maanta galeena barnaamijyadan YouTube-kayga barnaamijyo hore waa ka daawatay qaarkoodna ka qayb qaadatay barnaamijkan ina maanta Galdood ka soo qabto muxuu kaaga dhigan yahay maxaa isdii karta barnaamijkan ma socon kara barnaamijkan uu soconaya hadii aan ku raadal si wado aadiya uu soconaya barnaamijkan dadka qaar baa leh in dadka kuwa maaratay dad isku hooseeya la isku diriya tamxa kalaada taas waxa kuma jiraan badhiila samaha hada adiga waxa diyaar u tahay ina qoftaada tijaabisid صح in jacaylka daacad u tahay qofka aad tijaabinaysid waa gabar aad jeceshin dabcan dabcan gabar aad jecelahay weey magaceed waxa la yiraahdaa Sahro Sahra aad jeceshin imisa sana wada socoteen sanad baa wada soconaa sanad marka maxaa ku tijaabinaysaa barnaamijka inta badan waxa dadka lagu tijaabiyaa markii habacsanaan qofka laga arko waxa ka aragtay in ka yar cagajiyada mise aad iska tijaabinayo ana iska tijaabinayo in bal ay ku jeceshay in kale waad hay Sahro magaceedu waa Sahro kaliya adiga magaceedu ku taqaana hal magac kaliya taqaana waan magac aan ku hay magac Alfanaan Daljir taqaana Alfanaan Daljir waad hay hadii Alfanaan Daljir dhahada gabadhaasi waa tig hadii kalena luqluq waa ku jira waa tahay asxaabay waxaan wacaynaa Sahro waxaan weydiinaynaa qofka nala taagan magaciisa haday sheegtana gabadhaasi Daljir waa qoftiisi hadii ma taqaana ay magac kala sheegtana baxar baan galnay waa tahay lambarkeeda noo qorsi aan wacno saakii hore waa dinsana kana wacayna kan waa noo dhacay waxa ugu muhiimsan ee qofku isaga difaaci karo dhibaatooyinka xanuunka COVID-19 halo assalaamu calaykum وعليكم السلام Sahra sitay الحمد لله بارك waa gabar Maryaladana la dhaho oo YouTuber ah magaalada Galdood joogta Sahro waxa sameeynay barnaamij ah tijaabi jacaylkaaga inuu daacad ku yahay barnaamijkaas waa ogtahay meelo badan baa laga qabtay maanta waxa jeclaysan in Galdood ka qabano marka waxa jeclaysanay waxa nala taagan qofka adiga jeclayd marka waxa rabnaa magaciisa ina sheegtid barnaamijka horta soo aragtaa والله برنامجكم هو برنامج فعال يا برنامج فعال haye marka aad codka kor u qaadsid hadda qofkan nala taagan oo lambarkaaga na soo siiyay magaciisa kaarna haye marka Maxamuud miya يا باي محمود مياه محمود
maya maxamuud maaha adoo meeqa qof xiriir la leedahay abaaye waxaan kaaba oran karo inta xiriir la leeyahay kacay ma tata ya bashin way taas lookaa hay markaan kaaba oran karo inta la leeyahay waa sax laakiin maxamuudna lama taagna yaa kala sheegi lahay shabab ya عبد العزيز ما يا عبد العزيز نوعها qof ma jira xiriir dhab ah la leedahay oo ma taqaanaa adiga ku jecel adigana aad jeceshahay abaaye aniga qof aan jeclahay horta ma jiro kii jecel asay u taalaa haye haye لا تعالى هذا عن حرير الله يهنا متشي هاي اوكي bal waayahay sahroy anaga qof lambarkaaga na soo siiyay isla markaana wuxuu barnaamijka inaa galaa raba oo qofteedii la tijaabiyo dabcan qofku jecel un baa lambarkaaga hayn kara marka de qofka la hadal asaga hada isgarataan bal hay sahroy samee isku gamcana samee isku gamcana وعدين ميانا نقول له الفنان الجريمة ما قرن اسمها ها أبو كاميرا دكيرة كتير هي بدرني هاي أكيد دماغك عفاري يرى على النقاط بصراحة شكله ما يبدو والله سالسكم ما قاعد يشتغل رويدي سالسكم والله نيو كاميرا بحوالها وحري كاميرا في مصارتي كاميرا دكيرة كتير هي برنامج كمركة يرى على النقاط استعلم برنامج سالسكم وين sahroy شباب barnaamijka ma isticmaali karnaa baa youtube ma gelin karnaa ها بعدين hayo maasanta dirjir kolay daacad baa u ahayd sanad baa sheekeysanayseen ayadana ilaa ay waxay sheegtay laba wiil magacaagana ma sheegin marka adiga dareenkaaga waa dareemi karnaa waxaad dareemi kartid qof muddo aa la sheekeysanaysa sanada isbedel inuu imaanayo dhanka qalbiga laakiin maxaa oran lahayd gabadha walaashaay waxaa oran lahaa calafkaaga waxaan ku radaa calafkaaga oran lahaa ma jiraa dal jiro qof kale oo maanta dee baarti balanbi ku ahaa oo maanta isdhigi kartid sahra saasa kugu samaysay qof kale oo adiga shakala wadaagtay oo ku wici karno maya ayadaan ku kalsoonaa aad baa maasantaa kusoo dhawow walaal Maria Ladan official adoo magacaaga ku bilaabaysa walaal macaan waa dhowhay magacaygu waa Hodan Mahdi hodan ay soo dhawow in badan channelkeena barnaamijyo kala duwan way ka baxeen maanta waxaa qabanaynaa barnaamijkii tijaabi jacaylkaaga inuu daacad ku yahay horta barnaamijka soo aragtaa wadan aniga barnaamijkan waxa uu arkaa inuu yahay barnaamij fiican oo ma garanaysaa aan ku tijaabinayno dadka xiriirada aan la leenahay inay daacad noo yihiin iyo inaysan noo ahayn waana ku faraxsanaa in galdogob laga hirgeliyay adiga aad bilowdo Maria Ladan waa tahay hodanay qofka tijaabinaysid siyaabo kala duwan dadku waxay ku wacaan qofka inay iska arkaan qofkan jacaylkiisa intuu gaarsiisan yahay inay arkaan shaki inuu ka galay adiga sifase ayaa ku wacaysaa ma shaki baa kaa galay mise waxaa ogaanaysaa in kaligaa ku jecel yahay Maria Ladan oo mahadsan tahay horta barnaamijkan waxa uu kalifay inaan galo horta wiilka aan rabo in barnaamijkan la igu sameeyo waxa wada soconay muddo 9 sano ah qurbaha ayuuna jiray haddana galdogob buu joogaa 9 sano qof aan wada soconay oo inta badan horta guur iima soo bandhigan marka xoogaa xaggaasna shakiya ka dareemay marka waxaan rabaa in la ii tijaabiyo maadaama haddana uu 4 bilood joogo oo uusan garanaysaa Mareykanka ku imaaday oo xataa uu soo idhin hawlba oo socdayo qof muddo badan wada socon marka waxaan rabaa in la ii tijaabiyo dareenkiisa bal waxaan rabnaa wiilka magaciisa maxamed baa tijaabinaynaa kadib waxaa ogaanaynaa inuu jecel yahay hodan iyo in kale si hodan noo sheegtay 9 sano runtii waa sanad aad u fog in badan weeye oo caruuro badan lagu dhali karo
laakiin intaas in jacayl la isla wado runtii waa jacayl fogaada dhigi karnaa hodanay marka maxamed markaa wacno maxaa ka filaysaa guul iyo guul daraba labadaba waa u fadhiya laakiin inta badan guushaa sugaya waa tahay hodanay waxaa noo qoraysaa maxamed lambarkiisa ilaa waxaa nagu caaween tahay waa wacaynaa waxaan kala kulano baa leenaha fadlan qaado tallaalka covid-19 tallaalku waa waxa ugu muhiimsan ee qofku isaga difaaci karo dhibaatooyinka xanuunka covid-19 tallaalkani ma laha waxyeello caafimaad alo asalaamu calaykum waalaikum salaam maxamed soo maaha walaalo yaa waaye see tahay maxamed maasha allah barwaaqaysanahay walaale waa gabar maryan ladana la dhaho oo joogto galdogob barnaamij waxaa qabanaynay tijaabi jacaylkaaga inuu daacad ku yahay in badan waa daawata oo malaynaya barnaamijyadaas maanta waxaa jeclaysanay inaan galdogob ka qabano marka see u aragtaa barnaamijkaas wallahi waa barnaamij xiisiisa wata wax badan oo daawaday marka waa soo dhaweynaya waa tahay barnaamijkaas rabnaa inaan galno waxa kuu soo wacnay waa dareemi kartaa anaga lambarkaaga ma naqaano gabar ku jecel baa nala taagan isla markaana lambarkaagana siisay barnaamij kale inay ka qayb qaadato jeclaysatay gabadhaas waxaan kaa rabnaa magaceeda inaad sheegtid meesha joogtid igu cali galdogob ma igu dhahay galdogob haa ayadoo kula joogtaa marka mise ayaduba ila joogtaa waxay ugu tiri ii wac isla markaana magacayga hadduu sheego dee qofkaas qof si daacada ii jecel inuu yahay baa dareemi karaa haddii kalena dee wakaasa marka adiga dabcan hal qof baa tahay hal qalbi baa leedahay waxaad dareemi karaa inaad magaceeda sheegi kartid kalsoonina ay kuu soo wacatay gabadhaas waa wejida magaceedna ayaan baa la yidhaahdaa ayaan ma hubtaa ayaan amaysan ahayn mid kale ma jiro gabadha nala taagan ma ayaan ba hadda tiri qof kale kula taagan bal waayahay horta iyada la hadal in ayaan la dhahay in kalena iyada weydii halo maxamedow may abo hodan waaye maxaa ayaantaa sheegis maxaa waaye hodan waaye hew hodanta goldogob joogtay ma garanaysa miya maxay tahay inkiraadda intaa leeg maxay tahay ayaan baana la yidhaahdaa waqti dhumis miyaa igu wada intaas walaalay ma garanaye hodan aan garanaayo laba jideen hadda barane may walaal raali noqo barasho wanaagsan isku soo dhibin qof aniga hodan ma garanaaye dadka ayaan la yaqaanaa marka haye haddaada garan walaalo mahadsan tahay ala maxamed hodanay horta waa ka xunnahay waxaa dhacay runtii 9 sano iyo sida uu hadlay inanka walaalkeena wax isku dhow iyo wax islaan ma ahan laakiin waa kula dareemanaa annaga qalbi jabkaas iyo 9 sano oo xiriir la wadawaday haddana aan waxba laga qaban haddana uu gabar kale magaceeda sheegay marka see u aragtaa mari abay maasan tahay horta in xiriir aan muddo badan aan waday oo ma garanaysaa qof oo intaasoo rag aan dartiis u ceyriyo ama intaasoo sanaa sugaay horta inuu saa ii gelaayo walaahi marna ma umalaynaynin laakiin waa qadar dhacay waaye iyo cashar ka mida casharada maanta aan bartay ka mid tahay qofkaasna waxaan leeyahay waxba kuuma qabo isa kaa cafiya laakiin qalbigayga iska maskiin hodanay maadaama dee wiilka walaalkeena sidaas sameeyey
adigiina ku dareemi karno waxaad dareemisid 9 sano xiriir waday ma laga yaabaa inaad xiriir kala samaysid maxay saacashar kaaga dhigan tahay xiriir kale inaad samaysid aba maasanta marin horta qalbiga bini'aadanka waa dhala camal mar hadduu jabana suuku kama way adag tahay aniga marka kulay qofkii intaasoo sano aan jeclahay muddo badan aan la socday haddii finaalka meesha ugu dambeysay uusan ii galo oo qof kale magaciisa u sheegto laga yaabo in dad ugu hoos wadayba anigana kaligiisan daacad u ahaa ma u maleynaa inaan qof dambe aaminayo